gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka iyo sidoo kale madaxda sarsare ee dugsiyada Hira ee magaalada Berbera ayaa maanta si wada jira xariga uga jaray fasalo cusub oo lagu kordhiyay dugsiga sare ee Hira ee magaalada Berbera kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday xarunta dugsigaasi munaasabad ballaaran oo loo qabtay xariga jarkaasi ayaa waxa ka soo qayb galay arday waalidiin iyo sidoo kale gudiyada dugsigaasi iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay hay'adaha laamaha dawladda qurbajoog iyo waliba culimo waxaana halkaas ugu horeyn ka hadlay marxaladii kala duwanaaye uu soo maray dugsigan sare ee Hira maamulaha guud ee dugsiyada Hira Xaamud Xasan Wacays iyo sidoo kale Mustafa Umar Kujoog oo kamid ahaa gudidii gacanta ku haysay dhismaha dugsigaasi guud ahaan dugsiga waxa la sameeyay ama la aasaasay 2013 waxaana lagu bilaabay qaybta u dhow Cajab dugsigaasi waa dugsi hoose dhexe fasalka 8aad ardaydu markii ay soo gaareen 2017 camidraasiga mas'ala dugsiyadka waxa soo baxday baahida ah in ardaydu ay u baahan yihiin dugsi sare ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu nagu guuleeyay in la sameeyo dugsi sare alxamdulillah ilaahay uu noo hirgeliyay bishii 9aad kowdeedii waxaynu ku bilownay 4 fasal ee hore u sii dhisnaa isla markaana waxa la bilaabay in iyadana dhismo cusub iskuulku u baahan yahay iyadana markaa laga howlgalay waa dhismahan markaa maanta aynu xafladiisa fadhino markaa furitaankii iyo xadhigka jaristii aynu fadhino runtii markii la eego hoose dhexdiisii inuu yahay quality-giisu fiican yahay baa waxa la qasbay oo la doonay in secondary la sameeyo arinta waxa ka qayb qaatay arday badan ama reer badan oo Boorame iyo Hargeysa u guuray Berberay ku soo noqdeen carruurtoodina halkan ay fadhiyaan oo Hira dhiganayaan isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Saaxil Ibrahim Digaale Maxamed iyo sidoo kale saraakiil ka socotay dawladda hoose ee magaalada Berbera oo kamid ahaa agaasimaha waaxda maaliyadda iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay dugsigan oo kuna tilmaamay inuu kor u qaadayo adeegyada waxbarasho ee gobolka Saaxil iyagoo si weyn u amaanay maamulka dugsigaasi 48 iskuul waxaanu ka wada shaqeynaa waxbarashada asaasiga ah wasaaradda waxbarashada waxaanu kala shaqeynaa wasaaradda waxbarashada macallimiintooda waashmaanada kiliinisooyinkooda iyo tayeynta waxbarashada runtiina wuxuu ka mid yahay iskuullada haldoorka sanad kasta ardayda ugu sarreysa waa iskuulka ay ka soo baxaan degmada Berbera mana aha bareefadada fowdada ah ee nidaamka dawliga geesmara waa iskuul public private oo u hoggaansan shuruucda iyo nidaamka wasaaradda waxbarashada maamulkiisu gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Maxamuud Axmed Ibrahim Sandero oo isaguna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa u hambaliyay maamulka dugsiyada Hira iskuul lamida iskuulkan aynu maanta furayno qaabka uu dhismay ama qaabka uu ku aasaasmay ama qaabka uu wasaaradda ula jaan qaaday ama ugu xidhan yahay munaasabadani waxaa sidoo kale intii ay socotay halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarino hay'adihii kala duwanaa ee ka qayb qaatay dhismaha dugsigan oo ay ka mid ahaayeen dawladda hoose ee magaalada Berbera shirkadda DP World shirkadda Telesom iyo sidoo kale qaar ka mid ah jaariyadaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saaxil ku nool dalka dibadiisa Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera